السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أصحابتك في الشعية كارمي مرة تكسر هذا فرصة كالواد وقيمة بدن فرصة تنوحاوي فلنتير opportunity فرصة إسكا وحقب سما سي فلنتيلا إنه كاهلنا فرصة الشقة فلنتير إن كان ذلك إسبانيشكا هذا بفائدة إنك فرصة دانا إلا هاي أي نسلق هذا ديك دورنا إن شاء الله تعالى مدة سنة أي نصعد دون تعدوا لدنا هذا بقى فرصة تضوء أما فلنتي iyo barashada luqadda Isbaanishka lagu qaban doono gudaha dalka Spain waana soo arki doonaa insha Allah taala ka tirinayna nahay hadaba codsigan wuxuu furan yahay ama heli kara fursadan iska wax qabso bilaashka wuxuu ka dhici doonaa gudaha dalka Isbaanishka sidoo kale waxaad ku baran doontaa luqadda Isbaanishka ku baran doontaa wuxuu furan dadka dunida oo idil ayuu furan yahay haddaba fursadatan waxay bixin doontaa faa'iidooyin aad iyo aad u badan waxaa ka mid ah qiimaha duulimaadka tigidhkana bixin doonto waxaa ka mid ah daboolidda dhammaan cunnadaada inaad heli doonto sidoo kale hoyga waxaa la wadaagi doontaa hoygaaga dad kaloo tabarucayaal ayaa la wadaagi doontaa hoygaasu qalabkiisu aad u dhammaystiran yahay sidoo kale caymis caafimaad ayaa jiri doonaa waxaa jiri doonta sidoo kale gunno lacageedu gaaraysa €250 isgaarsiinta gudaha gobolkaas tadawucnimadii ka jirto si free ayaa ku heli doontaa sidoo kale waxaad heli doontaa koorsada luqadda Isbaanishka ku baran doonto ama offline ahaan aad ku baran doonto ama online ahaan aad ku baran doonto iyo qaar kale aad u badan ayaa ka faa'iidi doontaa fursadatan haddaba deeqdan waxbarasho ama deeqaha waxbarasho dhammaystiran haddii aad doonaysa inaad ka faa'iido fadlan si joogta waxaa loo socdaa Shaciya Academy oo si joogta inuu soo dhigno fursada aad u qiimo badan haddaba xog ku saabsan fursadatan la magac baxday ESC loogu talagalay fursad dhalinyarada loogu talagalay waxay qaadan doontaa kaliya 8 volunteer ay qaadan doontaa da'dooduna waa inay u dhaxaysaa 18 jir ilaa 30 jir waa inay u dhaxaysaa haddaba mashruuca iska wuxuu qabsaa muddada dheer socon doona bilaaban doona December 2021 oo bisha 12 ay bilaaban doona hadduu alidma qaadashada waxayna ku egtahay November 2022 ayay ku egtahay labadan gobol ayayna ka dhici doonaan ee ku yaala Spain gaar ahaan gobolka Barcelona ku yaala haddaba hay-adda bixin doonta waxa magaceeda la yidhaahdaa Fundacio Iveco ayaa la yidhaahdaa hay-adda bixin doonta magaceeda waa hay-ad si gaara loo leeyahay shaqadeeduna ay tahay ama ka shaqaysa ama danaysa horumarinta mashaariicda iyo activitieska awood u siinaya isdhexgalka bulshada iyo xirfadooda iyo isku xirka hadba khibradda iyo aqoonta tabaruca qofka tabarucaad uu leeyahay ama sar u qaadista khibradda qofka tabarucaada qaadanaya ama bixinaya uu leeyahay ujeedku waxaa weeye isdhexgal bulsho khibrad iswadaarsi ayuu ujeedka guud u yahay haddaba waxaynu soo arki doonaa fursadatan scholarshipka volunteerka ama iska wax u qabsa waxay horumarin doontaa waxqabadka hal abuurka iyo xiriirka maxaa yidhahdaa uu leeyahay qofka beeraha uu leeyahay hadduu qof beeraha ku wanaagsan uu yahay jaanis ayuu haysaa sidoo kale jaanis badan ayaa jira waan soo arki doonaa hadduu alidmo qofka mutadawaca waxyaaba uu tadawucaad ku samayn kara ama iska wax u qabsi ku samayn kara waxaa weeye barashada cilmiga barashada bulshada ama horumarinta bulshada waa education marka laga hadlo tusaale ahaan oo kale qofka in laga dhiso ama laga caawiyo kale shaqada guriga marka laga hadlayo homeworkska ama waxaan ka hadlaynaa oo ku aadan waxbarashada howlaha madadaalada ama entertainment saddex ahaaned workshops saddex ahaaned waxyaabuu ku wanaagsan yahay qofka kan ayuu awoodaa inuu kusoo bandhigo waxqabadkiisa sidoo kale dadka danaynaya horumarinta mashaariicda deegaanka ama environmentiga dadka danaynaya jaanis badan ayay u haystaan sidoo kale waxaa jaanis u haystaa dadka danaynaya howlaha isdhexgalka shaqada horumarinta shaqada iyo waxyaabaa la midka sidoo kale jaaniska wuxuu u banaan yahay dadka danaynaya caafimaadka sida nutritionka sportska iyo dhaqanka horumarintiisa waxyaabaa la mid ujeedka noocaas ayay u sameeyeen haddaba waxaynu soo arki doonaa faahfaahin ku aadan deeqdan waxbarasho ama fursadan scholarshipka faahfaahin ku aadan aynu soo arki doonaa dalka martigelinaya waa Spain magaalada lagu martigelinaya waa labada magaalo sidoo kale deeq bixiyaha waxaa weeye Youth Risk Social Exclusion ayaa bixin doonta ama ESE loo soo gaabiyo sidoo kale heerarka waxbarasho dadka codsan kara waxaa weeye dadka dhigta bachelor degree ama master dhigta ama doctorate dhigta
amaba ka qalin jabiyay iyagana waa codsan karaan. sidoo kale dadka codsan kara dhammaan dadka dunida idil da-da waa 18 jir ilaa 30 jir inuu udhexeeyo. luqadda qasab maaha shahaado luqad qofka inuu haysto. muddaduu soconayo volunteerka waa 12 bilood. taariikhdu bilaaban doono volunteerka waa 1 December ayaa la qaadan doonaa dadka, wuxuuna ku egyahay ilaa 30 ayuu socon doonaa 12 bilood. haddaba xilliga kama dambaysta ayaa codsan karto waxaa weeye 21 November ilaa 21 November ayuu ku egyahay codsigan uu xirmaya. haddaba qoraalkan waa qoraal insha Allah tacaala aad ku xiiso geli doona. haddii aad tahay waxaad codsan kartaa naftaada ayaa ka codsan kartaa adigoo raacaya linkiga soo dhignay adigoo raaci doona insha allahu tacaala, amaba adigoo raaci doona video step by step kugu sharaxi doona insha allah. sidoo kale haddii aad doonaysa inaad kordhiso channelskaaga Shaaciya Academy uu ku xarin doona hadduu alidmo. halkaan nagala soo xiriiri kartaa. sidoo kale kusoo biiri WhatsApp groupkeena iyo Telegram groupkeena si mar walba aad u hesho xog update ah. sidoo kale haddii aad doonayso adeegyada uu bixiyo Shaaciya Academy inaad qayb ka ogaato, Shaaciya Academy wuxuu ka caawin doonaa dalbashada deeqaha waxbarasho, codsiyada, tababarada, volunteerka iyo fursadaha shirarka dunida ka banaan. sidoo kale Shaaciya Academy wuxuu ka caawin doonaa diyaarinta dukumentiyada sida CV-yada, warqadda dhiirigelinta motivation letter loo yaqaano, warqadda shaqsiyeed personal statement loo yaqaano, warqadda talo bixinta, qorshe cilmi baaris haddii aad tahay arday barta baajka oo loo diro buugga qalinjabinta diyaarintiisa wuxuu ka caawin doonaa insha allahu tacaala. sidoo kale amaba hadduu alidmo qoraalada iyo shuruudaha kale ee deeqaha waxbarasho kugu xirayaan wuxuu ka caawin doonaa hadduu alidmo. sidoo kale kuliyadaha codsan kara dad kuliyada gaara miyaa codsan kara may dhammaan ardayda ka socota jaamacadaha kala duwan kuliyadaha iyo culumta kala duwan way codsan karaan fursadda volunteerka ee ka dhici doonta dalka Spain. faa'iidooyinka fursadda tan iska wuxuu qabsa youth bixiso waxaan kusoo xusno kor faa'iidooyinkaas oo idil ayaa ku heli doontaa hadduu alidmo. sidoo kale dukumentiyada lagaga baahan yahay waxaa weeye keliya labadan shardi ee lagaga baahan yahay inaad buuxiso codsiga foomka iska diiwaangelinta ama volunteerka iska diiwaangelinta inaad buuxiso. sidoo kale inaad qorto motivation letter ku caddaynaysid sababta aa u codsanayso fursadatan iyo how motivated you are dhiirigelintaada intaa la egtahay si aad u caddayso danta iyo maxaa la yidhahdaa waxqabadka kusoo kordhin doonto. shuruudaha haddaan mar labaad kusoo celino 8 jir ilaa 30 jir waa inaa xiisaysaa shaqooyinka teamwork maadaama teamwork lagu shaqeynayo shaqooyinka teamwork lagu shaqeynayo waa inaa xiisaysaa. waa inaad tahay qof xamaasad leh, bulsho la dhaqmi kara, firfircoon, maskax furan, dulqaad leh, hal abuur leh, qof isku kalsoonna ah. qofka aan waa inaad tahay qof aan wax ka qabin in lala wadaago maadaama guriga la wada degay uu yahay guri dadka mutadawiciinta ka wada dhexeynaya. waa inaad waxaan ka qabin in guriga lagula wadaagi karo. sidoo kale waa inaad tahay qof aan rabin inuu fasax u yimaado Catalonia maadaama tahay qof volunteer ah inaad fasax iyo arrimahaas halkaa iska dhigto. haddaad doonayso inaad cusub fursadatan halkan iska diiwaangeli. sidoo kale haddaad doonayso websiteka rasmiga ee lasoo dhigay inaad wax ka aragtane halkan ayay ka eegi kartaa. waxaan rajeynaya in insha allahu tacaala dad badan oo Soomaaliyeed inay ku guuleysan doonaan fursadatan. أنا رجعني إن شاء الله تعالى إن أكون كل سنة إذن كما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.